Soo dhawaada saaxiibayaal, mar kale isku soo laabasho wacan. Maanta waxaan iyada sii soo socday xalqadiisii labaad. Xalqadii hore haddaad soo daawanin soo daawo. Muuqaalka like inoo saar haddii aan cusub tahay nagu soo biir. Intaas kadibna aan guda galno xalqadeena. Markay tahay indhihiisu qabteen iyo gacanta isku salaamaya, arrinkaas muusan jeclaysan, qalbigiisuna wuxuu dareemayay masiir. Kadib waxaa aragnaa dhammaantood u fariistay inay mashruuca ka wada hadlaan. Intii uu shirka socday, Haan wuxuu la sheekaysanayay Nabduu, sida dad aan isku cusbeen oo hore isku aqaanay. Markuu Taan arrinka arkay, wuxuu Nabduu weydiiyey, ma hore ayaa isku taqaaniin labadiina? Nabduu waxay u jawaabtay, haa, waa deriskayga. Shir kadib, Nabduu waxay ku laabatay gurigeeda. Markay gashay, walaalkeeda ka yar ayaa si kedis ah ugu sheegay inuu go'aansaday inuusan aadin dugsiga cunto karinta. Markii hadalkaas maqashay, Nabduu aad bay u xanaaqday. Waxayna tiri, aniga si adag ayaan u shaqaynayaa si aad meel u gaarto. Xataa adiga dartaa lacag diin ayaan u soo qaatay si aan iskuulka cuntada kaaga bixiyo. Haddana waxaa leedahay waa iska tagayaa. Haddii aniga iga fikirin ugu yaraan hooyo ka fikir. Walaalkeed ayaa ugu jawaabay, hooyaday way i fahmi doontaa haddii aan runta u sheego. Weligeed igu qasbi mayso inaan sii wado waxaan jeclayn. Markii hadalkaas maqshay, Nabduu indhaheeda waxaa soo buux dhaafiyay ilmo. Sababtoo ah tan iyo carruurnimadeedii, hooyadeed waxay ka jeceshay walaalkeeda ka yar. Nabduu markaas way xajisan weysay shucuurteeda. Waxayna bilowdaa inay oyso si ay caradii iyo ciilka dareemaysa iskaga baabi'iso. Kadibna banaanka ay u soo carartay iyadoo oynaysa. Dhanka kale, Haan wuxuu banaanka la ciyaaraya carruur yaryar. Markuu arkay Nabduu oo oynaysa, durbadiiba dhankeeda ayuu aaday wuxuuna weydiiyey waxa dhacay. Nabduu ayaa si kedis ah su'aal u weydiisay, waxayna ku dhahday, ma hooyooyinka dhan baa carruurta yar ka jecel kuwa waaweyn? Haanna wax yar ayuu fikiray wuxuuna yidhi, maba ogi, laakiin haddii aan ra'yigayga rabto, maalin maalmaha ka mid ayaan kuu sheegi doonaa markaan ilmo dhalo. Nabduu halkaas markay maqashay, waxay bilowday ooyinta inay sii wadato. Haan markuu arkay ilmadeeda, maradii uu gashan ayuu soo qaaday, kadibna wuxuu ugu tirtiray ilmada. Maalinta xigtay, Nabduu waxay ku mashquulsan tahay duubista mashruuc kale. Sidoo kale, Minju wuxuu raadinayaa Janice mar walba korkeeda uu ku taabto, isagoo marna taabanaya timaheeda marna jidhkeeda. Taan markuu arrinkaas arkay, wuu adkaysan waayay wuuna xanaaqay. Laakiin markan xataa Haan ayaa goobta jooga, sidoo kale asna wuu xanaaqay. Markay duubista dhammaatay, Haan wuxuu u tagay Nabduu wuxuuna ku yidhi, maanta baabuurkaygii ma haysto, marka guriga ma isii geyn kartaa maadaama aan deris nahay? Nabduuna way ka aqbashay. Laakiin markuu Taan hadalkooda maqlo, wuxuu dareemay masiir weyn. Inta ay guriga u socdeen, Nabduu waxay ku dhex heesaysay baabuurka dhexdiisa si farxad leh. Haan oo dhegeysanaya heesteeda waxaa maskaxdiisa ku soo laabtay xasuusihii dugsiga sare. Waqtigaas Nabduu waxay u heesi jirtay si qurux badan. Haanna marba wuxuu ka daawan jiray meel fog si qarsoodi ah. Dhan kale, Taan wuxuu ku dambeeyay inuu khamri badan cabo, maadaama qalbigiisa uu jaban yahay. Sababtoo wuxuu jecel yahay Nabduu, laakiin hadda Haan ayaa soo galay nolosheeda. Markuu eegay sida isku dhow yihiin, wuxuu dareemay in durbadiiba qalbiga uu Haan ku guulaysan rabo. Maalinta xigta, Haan iyo Nabduu waxay wada aadeen suuq weyn si ay u soo eegaan alaabaha qaar ah. Inta ay socdeen, Nabduu waxay bilowday inay ka sheekayso qoyskeeda. Waxayna u sheegtay Haan in markay yareed hooyadeed u karin jirtay cuntooyin macaan badan, laakiin hadda wax walba way isbedeleen. Kadib markuu maqlay Haan hadalkaas, si kedis ayuu u istaagay. Nabduu way dareentay waxayna tiri, maxaa dhacay? Haan wuxuu ku yidhi, hooyadii weligii cunto iima karinin. Markay Nabduu halkaas maqashay, way u calool xumaatay. Durbadiiba waxay tiri, markasta u haysto cunto guri, kaliya ii sheeg, aniga ayaa kuu karin doonaa. Hadalkaas Haan wuxuu ka dhigay mid aad u farxa. Laakiin dhaqadaas nin aan la garanin ayaa si qarsoodi ah sawirro dhowr ah uga qaaday, iyagoo goobta wada jooga. Maalinta xigtay, iyadoo Nabduu shaqaynaysa, Minju ayaa u yimid isagoo ka codsanaya inay u raacdo kulan ganacsi uu aadi rabo. Nabduuna way ka aqbashay, laakiin markay meesha tagtay, durbadiiba waxay ogaatay in meesha ganacsi loo imaanin. Beddelkeeda qof walba wuxuu ka sheekeynaya iyada. Nabduuna waxay dareentay degenaansho la'aan, iyadoo cudurdaartay waxayna aaday dhankaas iyo suuliga. Dhan kale, Haan guriga Nabduu ayuu ku wareegayay marar badan, sababtoo wuxuu rabaa inuu arko iyada. Kadib markuu waqti dheer sugay oo uu waayay, wuxuu si kedis ah u helay ogeysiis, kuwaasoo ku saabsan ninkii qarsoodiga ah ee sawirada uu qaaday. Markii Haan iyo Nabduu ay joogeen suuqa, ninkaasna sawirada wuxuu soo geliyay internetka. Haan markuu arkay aad ayuu u naxay. Dhan kale, Nabduu waxay la kulantay gabar la dhaho Laylin, oo ahayd gabadhii fadhiday garabkeeda intuu shirka socday. Laylin ayaa weydiisay sababtay u baxday. Nabduu waxay tiri, aad baan u dhibsanayaa meeshan. Laylin ayaana ku tiri, ma waxaa rabtaa inaad baxdo? Nabduu durbadiiba waxay tiri, haa. Laylin u dhowr cadays waxayna tiri, hadda iska tag, aniga ayaa u sheegaya inaa xanuunsanta oo aaday guriga. Markaasna Nabduu u mahadcelisay wayna iska tagtay. Markay banaanka u soo baxday, waxay la kulantay si kedis ah Taan oo taagan banaanka. Aragtidiisa way ka naxday. Taan wuxuu ku yidhi, laga bilaabo maanta, maalin walba aniga ayaa guriga ku keeni doono. Nabduu oo wareersan ayaa weydiisay sababta. Taan wuxuu ku yidhi, sababtoo waxaa ay agaasimahaaga, sidoo kale waxaa ay saaxiibkaaga. Haddii qof kale isku dayo inuu sawir kaa qaado, aniga ayaa iska qaban doona. Nabduu si fiican uma fahmin wuxuu sheegayo. Dabcan saa ognahay, Taan wuxuu arkay sawirada, kuwaasoo internetka la soo dhigay Haan iyo Nabduu markay joogeen moolka, waana sababtuu u soo raadiyey. Dhan kale, Laylin waxay u sheegtay dadkii shirka fadhiyey in Nabduu si qarsoodi ah u baxsatay, waxayna ku dhahday dhaqankiina maysan jeclaysanin. Intaasna waxay ku dartay, waxaan arkay iyagoo Taan la taagan, waxaan u maleynayaa labadooda xiriir ayaa ka dhexeeyo. Minju markuu halkaas maqlay, aad ayuu u xanaaqay. Waxay u muuqataa Laylin inay isku dayayso inay beddesho Nabduu, ayna ku dirto qof walba meesha joogay. Kadib waxaan aragnaa Nabduu waqti la qaadanaya
qaadanaysa saaxiibteeda ugu dhow ee Noom ayaa si kedis ah u tiri, "Saaxiib waxaan u maleynayaa jecel inuu i haayo." Nabdoon durbadiiba way xiisaysay arrinkan, waxayna tiri, "Yaa waay ninka aad jeceshahay?" Noom waxay tiri, "Waa farshaxaniste aad u caan ah, magaciisana waxaa la yidhaahdaa Mitch." Dhan kale waxaan aragnaa Han oo ka shaqeynaya sawir gacmeed. Markuu dhameeyay wuxuu ku saxiixay sawirka magac kale. Han ma isticmaalo magaciisa rasmiga ah. Sawiradan wuxuu ku saxiixaa magaca Mitch. Tani waxay ka dhigan tahay in farshaxanka ay Noom jeceshahay uu yahay Han. Intaas kadib Han wuxuu tagayaa guriga. Nabdo ayuu la kulmay wuxuu xasuusiyey inay ku tiri maalin maalmaha ka mid ah ayaan cunto ku karin doonaa. Nabdo way dhoola cadaysay waxayna tiri, "Waaye hadda ayaan kuu karinayaa waan isla cunaynaa." Nabdo markaas waxay bilowday inay jikada cunto ku diyaariso. Inta ay wax karinaysay Han wuxuu si qarsoodi ah ugu duubayay muuqaalo. Markay Nabdo dareentay waxay tiri, "Sababta iga duubeyso fiidiyowyada maxaa waaye?" Han wuxuu ku yiri, "Muuqaaladan waxaan daawan doonaa mar kale." Han markuu gartay qalad inuu galay si degdeg ayuu mawduuca u bedelay. Wax yar kadib biyo ayaa si kedis ah ugu daatay Han madaxiisa. Timihiisana waxay kusoo dhaceen wejiga korkiisa. Nabdo waxay dareentay Han inuu og yahay wiilkii yaraanta iskuulka la dhigan jireen. Waxayna bilowday si dhow inay Han u egto, iyadoo ku dhow inay aqoonsato. Laakiin intaysan si fiican u fikirin, Tan ayaa si kedis ah u yimid. Markuu Tan arkay Nabdo iyo Han oo wada jooga, masiir ayaa qabtay. Markay cuntadii dhammaatay, dhammaantood waxay usoo fadhiistay inay qadeeyaan. Aragtida Tan waxay gebi ahaanba kharibtay niyadda Han. Han wuxuu isku maleynayay maanta in waqti la qaadan doono Nabdo, laakiin Tan ayaa qorshihiisa dhan burburiyey. Kadib Tan wuxuu la kulmay kaaliyaashiisa. Tanna wuxuu yiri, "Waxaan dareemayaa in Nabdo ay si tartiib tartiib iga fogaanayso. Xataa hadal ku saabsan nolosheeda iima sheegato." Kaaliyaha ayaa ugu jawaabay, "Waxaa laga yaabaa inuu jiro nin kale oo ay nolosheeda soo galay." Hadalkaas Tan wuxuu ka dhigay mid sii murugooda. Haweenkaas markay Nabdo banaanka usoo baxday, waxay aragtay xoogaha cunto fudud iyo qoraal yar oo loo dhigay banaanka albaabka. Dabcan Han ayaa meesha uga tagay. Markay aragtay hadiyadda gadiska ah, Nabdo way dhoola cadaysay. Maalinta xigta Han wuxuu joogay istuudiyihiisa. Markuu Tan u yimid markiisa ugu horreysay waxay ka sheekaysteen shaqada, laakiin si tartiib tartiib ah sheekadu waxay u wareegatay dhanka Nabdo. Tan wuxuu weydiiyey waqtigii ugu horreeyay ee isbarteen labadooda iyo meesha isku barteen, laakiin Han wuu ka diiday inuu uga jawaabo su'aashaas. Istuudiga dhexdiisa waxaa yaalay sawir, kaasoo laga sameeyey Nabdo. Markuu Tan isku dayay sawir inuu ka qaato, durbadiiba uu ka joojiyey wuxuu ku dhahay, "Kan aniga ayaa iska leh, mana qaadan kartid." Labadoodu waxay bilaabeen sida ilmihii inay wax yar isku dagaalaan. Daqiiqadaas Nabdo ayaa timid istuudiyaha. Markay aragtay labada nin ee waaweyn oo ku dagaalamaya boosterkeeda, aad bay ula yaabtay waxayna bilowday kor inay kasoo egto. Kadib waxaan aragnaa dhammaantood oo guriga u wada socdaan. Inta ay jidka ku jireen, Tan wuxuu Han ku yiri, "Adiga keliya iska tag, aniga ayaa Nabdo guriga geyn doono." Tani waxay Han ka dhigtay mid yara murugooda, laakiin markuu baxay Nabdo way u dhoola cadaysay iyadoo gacanta u taagtay. Arrintaas durbadiiba Han waxay ka dhigtay mid aad u faraxsan. Kadib markuu Tan baabuur ku siday Nabdo, gaariga dhexda maraya ayay ku seexatay. Tan ma uusan rabin inuu hurdada ka toosiyo, si tartiib ayuuna ugu dhawaaday asagoo raba suunka inuu ka furo. Nasiib daro durbadiiba Nabdo ayaa indhaha soo kala furtay. Tan wuxuu noqday mid naxa, si degdeg ayuuna uga fogaaday. Markaas Nabdo way mahadcelisay wayna gashay gurigeeda. Maalinta xigtay Han iyo Pete waxay joogeen istuudiyaha. Han nin ayaa u yimid wuxuuna Han u sheegay in barnaamij weyn loo agaasimay berrito. Agaasimayaasha barnaamijka waxay rabaan in Han uu dadka muujiyo wejigiisa iyo qofku dhab ahaan yahay. Haddana kaliya waxaa loo aqaanay inuu caan ku yahay magaca Mitch. Pete aad ayuu u farxay markuu maqlay, laakiin Han gebi ahaanba ma faraxsaneen. Dhan kale waxaa aragnaa Noom iyo Nabdo oo wada joogaan. Noom si waali ayay u faraxsantahay maadaama ay arki doonto farshaxanka ay jecleyd ee Mitch. Maalinta xigtay Pete ayaa si qurux badan usoo labistay si uu barnaamijka usoo aado, laakiin Han wuxuu diiday inuu aado wuxuuna yiri, "Aniga meeshaas ma aadayi, mana jecli meelahaas mana rabo inay dadka ogaadaan qofka aan dhab ahaantii ahay. Adigu iska aad xalfadaas." Marba hadduu hadalkan Han si dhab ah u dhahay, Pete waxba kama qaban karin wuuna iska dhaafay. Markay barnaamijka tageen, Noom qof walba waxay weydiinaysay hal su'aal, "Goormuu Mitch imaanayaa?" Laakiin nasiib daro qofna uma hayn jawaab. Daqiiqadaas Pete ayaa arkay Noom. Markuu indhaha ku dhuftay, isla markii jacayl ayaa ku dhacay. Isla markiina wuxuu bilaabay inuu isku dayo inuu soo jiito. Pete wuxuu ku yiri Noom, "Qofka aad raadinaysa ee Mitch waa aniga." Noom markay hadalkaas maqashay si waali ayay u farxday, maadaama islahayd ugu dambeyntii qofka raadinaysa waa la kulantay. Labaduna waxay bilaabeen waqti dheer inay wada qaataan. Noomna durbadii way la dhacday dhaqankiisa. Dhanka Nabdo waxaa usoo dhacay Tan dhanka hooyadeed ah. Sidoo kale sida caadadeed, hooyadeed waxaa usoo wacday inay lacag weydiisato si ay walaalkeed u caawiso. Nabdo awal dhibaatooyin badan ayaa nolosha ka haystay, marka codsiga hooyadeed wuxuu kasii kordhiyey murugada. Si ay maskaxdeeda usoo qoojiso, banaanka ayay usoo baxday, iyadoo rabta inay hawo nadiif soo qaadato. Halkaasna waxay ku kulmeen Han. Han markuu arkay inay dhibaataysan tahay, wuxuu geeyey meel degan oo ay si raaxo leh ugu sheekaysan karaan. Nabdo waxay cabtay xoogoo cabitaan ah, waxayna banaanka soo dhigtay xanuunkii dhib ku jiray qalbigeeda. Waxayna u sheegtay Han dhibaatooyinka qoyska iyo wax kasta oo dhibayay. Waxay tiri, "Haddaan iskuulka dhammaysan lahaa, laga yaabee inaan maanta noloshan ku noolaan lahayn." Kadibna ooyinta ayay dib u bilowday, laakiin sababta dhabta ee iskuulka u dhammaysan weysay gadaal dambe ayaan ka ogaan doonaa. Maalinta xigta Noom waxay timid guriga si ay ula kulanto Pete. Pete wuxuu isku dayay inuu ka joojiyo guriga ay soo gashay, laakiin Noom waa iska inatad gudaha ayayna usoo gashay. Markay gudaha gashay, waxay aragtay sawirada Han gacantiisa ku sameeyey. Durbadiiba waxay ku bilowday ammaan. Daqiiqadaas Han ayaa si kedis ah usoo galay. Pete markuu arkay Han wuxuu bilaabay calaamadooyin inuu siiyo, isagoo ka baryaya inuu meesha ka tago. Han oo fahmay xaaladda ayaa si degan dib ugu jeestay oo halkaas ka tagay. Markay Noom gurigeeda ku laabatay, Han wuxuu Pete weydiiyey sababta ay gabadhu meesha u joogtay. Pete ayaa runta dhan u sheegay, wuxuuna yiri, "Noom waa taageero weyn oo adiga ku jecel, laakiin dhibka wuxuu yahay aniga ayaa jecel iyada." Sidoo kale waxaa u sheegay Mitch in aniga ahay, "Waxaan ka codsanayaa runtii inaadan u sheegin, haddii kale dhib weyn ayaan galaya, jacaylkeena waa weynaya." Markuu maqlay hadalkaas, aad iyo aad ayuu u xanaaqay.
dhaqaaqay. Muuqaalka xiga waxaa arkaya Nubdo oo maqaaxi dhex fadhida, iyadoo halkaas ku sugaysa Tan iyo Minju si ay arrin shaqo uga wada hadlaan. Markii cabaar sugtay waxay wacday Tan. Tan ma uusan aqoon sababta ugu hurday. Markaas Nubdo waxay iska qaataa sawir selfie ah, waxayna soo dhigtay Instagram-ka story-geeda, iyadoo xataa muujisay location-ka ay joogto. Wax yar kadib Han ayaa arkay story-gii. Markuu arkay meesha ay fadhido durbadii buu soo baxay. Dhan kale Minju ayaa yimid maqaaxidii. Minju wuxuu si qarsoodi ugu dhex diray cabitaanka Nubdo. Markii Nubdo cabitaanka cabtay waxay bilowday inay weerarto. Indhaha dhan ayaana madoobaaday. Minjuna arrinkaas ayuu ka faa'iidaystay wuxuuna bilaabay inuu meel geysto, iyadoo gebi ahaanba meherkeeda joogin. Laakiin inta arrinta meel xun gaarin, Han ayaa imaaday. Isagoo aan kala labayn Minju ayuu gadaal u riixay. Maadaama meel ay joogeenna muu samayn karin dagaal Minju, wuxuuna ku qasbanaaday inuu dib u gurto. Isla waqtigaasna Han ayaa meesha ka kaxeeyay Nubdo. Season-kii noo socda xalqadiisii labaad halkaas ay noo egto saaxiibayaal. Insha Allah xalqada saddexaad waqtiga u dhow ayaan soo dhigi doonaa. Bas intaas soo gaartay muuqaalka like inoo sar haddii noo cusub tahay nagu soo biir. Sidaas iyo nabadgelyo.